السلام عليكم كل دhowaada channelkeena FK Media intaan muuqaalkana guud galin marka hore like inoo saar fadlan haddii aad ku subscribe subscribe inoo saar qasoo jiib ah waxaa laga sheegayaa waqtigii hore in boqor dowladiisu ku amray in ruuxii kalmad wanaagsan ku hadla badhasiiyo 400 dinar haddaba maalin isagoo magaalada ku wareegaya ayuu wuxuu arkay nin oday beeraley ah oo beeraya geed saytuun boqorkii baa wuxuu ku yidhi ninkii odayga ahaa maxaad u abuuraysaa geedkan saytuunka iyadoo ay u baahan tahay 20 sano si ay u miro dhasho adiguna 90 jir baad tahay ajishaadu way soo dhowdahay oo waad gabowday odaygii beeraleyda ahaa ayaa ku yidhi kuwii inaga horeeyey way abuureen inagaana goosnay inaguna waanu abuuraynaa si ay u goostaan kuwa soo socda intaa kadib boqorkii ayaa yidhi waad wanaajisay hadalkaaguna waa kalmad wanaagsan markaas ayuu amray in la siiyo 400 dinar haddaba odaygii 400 dinar ayuu qaatay kadibna wuu dhoolaadeeyey boqorkii ayuu weydiiyey maxaad u dhoolaadeysay odaygii beeraleyda ah ayaa yidhi geedka saytuunka 20 sano ayuu miro dhalaa aniga geedkayga hadda ayuu miro dhalayaa haddana boqorkii ayaa yidhi waad wanaajisay wuxuuna amray in la siiyo 400 dinar odaygii wuu qaatay lacagta haddana wuu dhoolaadeeyey boqorkii mar labaad ayuu weydiiyey maxaad u dhoolaadeysay odaygii baa yidhi geedka saytuunka sanadkii hal mar ayuu miro dhalaa aniga geedkayga 2 mar ayuu miro dhalay boqorkii ayaa yidhi waad wanaajisay wuxuuna amray in 400 dinar kale la siiyo kadib boqorkii si dhagsi ayuu ugu soo tagay odaygii beeraleyga ah askartii ayaa weydiisay maxaad ugu soo orartay ninka odayga ah boqorkii baa yidhi haddaan maanta dhan ag joog lahaa khasnadaha maalka ayaa dhammaanayo ninka odayga ah hadal wanaagiisu ma dhammaanayo fiiro gaar ah walaalyaal boqorkaasi uu yidhi ruuxii erey wanaagsan ku hadlaba 400 dinar ayaan siinayaa kadib ninkii odayga ahaa 3 jeer markuu siiyey markii afraad wuu ka soo oraray si ay khasnadihiisu u dhammaan howran Allah subhanahu wa ta'ala oo aan khasnadihiisu dhammaanaynin oo ku ballan qaaday wanaag walbaba aad samaynayso inuu kugu ajarsiinayo misna waxa kale kugu bedelayo ajarkii aakhirana uu gaar ku yahay waatii Allah subhanahu wa ta'ala yidhi halkii hasanaad aad samaysaan 10 ajar ayaan idinkugu abaalmarinaa xeeraysan khayrku weligii wuu miro dhalayaa kalmad wanaagsan oo aad weelka ku tiraahdaba ha ahaatee